shir jirayd gaaban yaan doonaya halkan inaan ku qabto biidmillaah waxaan dhageystay galabta kilibka waxaa duubay 2 xildhibaan oo golaha deegaanka xildhibaanadu marka hore 2 xildhibaan run ahaantii ninku waxa uu leeyahayna in la sheego wixii ka qalloocdana la sheego ayay dadnimada ku jirtaa 2 xildhibaan run ahaantii markaan nahay golaha deegaanka waa xildhibaanada ugu horeeya safka hore haddii ay firfircooni tahay haddii ay degmada nala doortay tahay qayladhaanteeda run ahaantii rag active ah oo shaqeeya oo ku mahadsan ayaan labadaa nin ka aaminsanahay waxba laakiin ka qalloocday maanta waxaa ka qalloocday madaxda qaranka caydeedu wax qiimo oo ay qofka u kordhisaa ma jirto waxa kaloo jirta wixii aad qayladhaan tahayd ee degmada aad u qaban lahayd ama u hadli lahayd adigoo dee sharaf iyo edeb ku daraya waxaa burburinaysaa waxaad noqonaysaa nin xasarad ama fadeexad qof madaxa u soo fadhiistay meesha marka aad loo qiimeyn maayo wixii aad ka hadlaysay 2 xildhibaan ee golaha deegaanku waxay ka hadleen wasaaradda caafimaadka iyo arrimahan covid-ka gobolka togdheer waxaa jooga wasiirkii horumarinta caafimaadka markaa waxaa dhacday wasiirku gobolka waxa weeye waa wasiirkiisii dhibaatooyinka maanta ka jira cudurka safmarka ana waa la ogyahay qayladhaanta gobolada bari cid badan baa ka hadashay guddi bay leedahay madax bay leedahay barasaab bay leedahay maayar bay leedahay isuduwo caafimaad bay leedahay guddi bay leedahay kahortaga covid-ka ama dee hawshaa loo igmaday waxa weeye cid walba dee waa ka hadasho wixii ina soo gaadha ee dowladda dhexe iyo guddida inaga soo gaadhana dee waa laysla ogyahay wixii inaga maqanna maanta dee cid waliba qayladhanta way diraysaa aniga ka mida waxaanu leenahay dee oxygeenta hadday mashiinadii tahay iyo haddii wixii gobolku ay xaq u lahaayeen in la helo waa daruuri laakiin qayladhaantii xildhibaanadu ay dirayeen ama wasiirka wixii ay kaga hadlayeen waxbaa ka qalloocday shaqsi abbaar madaxtinimo ayaa ka muuqatay meesha waxaa weeye dhaqan uma lihin inaynu qof madaxa oo gobolkeenna jooga ku xagxaga noocayno maanta ninkaa madaxda ah ee wasiirka qaranka ee gobolkeennii jooga iyo degmadeennii inaynu cayno tv-ga usoo fadhiisanaa waa shay mustaxeelah waxaanu leenahay marka hore raaligelin baanu ka bixinaynaa sacaadatul wasiir waxaanu leenahay waxaasi wax laysku raacsan yihiin maaha madaxweyne ku-xigeenka xildhibaankii ka hadlay si gaaban buu dee uga hadlo 5 milyan oo dollar miyaanu ka weynay mashiinada taasi xildhibaankaasi dee sidaa uu u hadlay waa sax weeye haddii dee aynu tuhmayno in lacagta intaa la eg ay jirto dee wixii aynu xaq ugu lahayn iyo wax laynoogu daraba dee waynu doonaynaa balse xildhibaankii kale ee wasiirka ka hadlayay wuu ku raftay waxaan la yaabay xildhibaanku wuxuu yidhi ninkaasi nin wax garanaya maaha fiilkii caafimaadka nin wax ka garanaya maaha haddana wuxuu leeyahay ninkani maamul iyo macalinimo jaamacadeed buu soo maray bal adigu isqabadsiin labadaasi sidaad isu qabadsiin lahayd ninku hadduu jaamacad macalin ka soo noqdo oo maamul ka soo noqdo waxa weeye fiil kasta oo tacliina waa ninkii soo abuuray ama soo beeray isagaa ku soo shuba dadkii wax baranayay waxa weeye fiilka caafimaadka waa ninkii gacanta ku hayay maamulna wuu ka soo noqday macallinna wuu ka soo noqday arrinkaa markay tahay oo dadkii isagu uu beeray ee abuuray ee uu wax soo baray ay caafimaadka yihiin oo ka shaqeeyaan sababta odhanaysa ninkaasi waxa ma yaqaano bal 2 xildhibaan sidaad isu qabadsiin lahayd ayaa dee ummaddu ku weydiinaysaa waxaan kaloo leeyahay rag dee waxa ahaydeen firfircoonoo 2 xildhibaanoo waa ku mahadsantihiin sharaf leh waxay rag degmada iyo gobolkaba u hadla laydinkama baran xagxagashada madaxda waana inugu mudaro gobolkeenna nin heer qarana oo jooga iyo madaxweyne ku-xigeenkiiyo dee hawshiisa isaguna wada inaynu maagno oo ku xagxaganaa way inugu xun tahay waxaan leeyahay arrintaa dib uga noqda xaal ka bixiya wasiirka xaal siiya taasi waa taa ta kale waxaan leeyahay
wasiir arrintaa golaha deegaanka doona isku maraxsanin in gobolka lagu caayo xaq maaha wixii aanu haddaanu gobol nahay aad noo siiday imaka iyo wax hore kaa yimi way jiraan wixii naga dhimanna dee waanu kaala hadlaynaa madaxda ka wada hadlaysa ganacsatada ka hadlaysa guddidii covidka ka hadlaysa anagoo xildhibaanadii baanu kaala hadlaynaa wiiliyaha inaanu cay ku marina dhaqanna nooma aha raaligelin weyn iyo boolojiis iyo xaal waanu ka bixinayna xildhibaanadiina waxaanu leenahay arrintaa madaxda qaranka caydeeda waa in xaal laga bixiyaa taasi taa weeye ta kale cudurkan dee safmarka ah ee adduunyadii oo dhan ay la yaaban tahay dowladihii ugu waaweynaa ee quwadaha lahaa baabi'iyey dee gobollo aan waxba oolin oo wax badani oolinna waad ogtihiin dee dhibaatada ka iman karta marka haddii aanu galgalanno oo ay wax naga soo baxbaxaan waxaan leenahay madaxda qaranku ha noo dulqaadato gobolka togdheerna iyo gobollada bari ee ka sii sheeyana waa in il dheer lagu hayaa xanuunkaa daraaddii inahaasaan ku soo gebagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu